Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Idlahantiin badawadayaal ku soo dhawaada janaalka xulka warar qodobada aan idin soo gudbin doono waxaa qayb ka noqonaya Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo dacwad ka dhan ah loo gudbiyay wadamo uu dhalashadooda haysta iyo cidda ka gudbisay maxaase ay noqon kartaa dacwadaas ayaan idinkugu soo gudbin doonaa. Qodobada xiga ee aad ku daawan doontaan waxaa qayb ka noqonaya madaxweyne Farmaajo iyo kooxdii inta uu madaxweynaha la qaraaban jirto oo hadda cabsi ay soo wajahday iyo kiisas dilal ah oo cadeymahoodii la helay. Hay-adda NISO oo xildhibaan Kulanajiis oo ilaaladiisa qaar ka mid ah ay kala noqotay kulano oo cabsi ay soo wajahday iyo baaritaan dhowaan ay bilaabayso hay-addaas ayaan idinkugu soo gudbin doonaa. Qodobada kale ee aan idin faahfaahin doono waxaa qayb ka noqonaya safarka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo la sheegay in lagu colaadinayo wadamada sida indho-la'aanta u taageeri jiray madaxweyne Farmaajo iyo xiriir cusub oo ay bilaabayso dowladda Xasan Sheekh Maxamuud. Haddaba wadamadaasi waa kuwee ayaad ku daawan doontaan. Qodobadaas iyo qodobo kale iyo wixii nagu soo kordha faahfaahintooda ayaad maqli doontaan ee ku soo dhawaada mar kale ismaqal aragti wanaagsan. Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa waxaa laga gudbiyay dacwad ka dhan ah dhalasho wadamada qaarkood uu ka haysto ayaa la tibaaxaya. Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo bara ka ahaa jaamacada ku yaala gudaha wadanka Kenya ayaa waxa uu carabka ku dhiftay in Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu ka dambeeyay ama lug uu ku lahaa sida uu professorka tilmaamay afduub Sebtembar 2021 lagu geysto gudaha magaalada Nairobi ee caasimadda wadanka Kenya. Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed ayaa hoosta ka xariiqay in marnaba raalli ka noqon doonin waxa lagula kacay. Uu sheegay in Rooble uu lug ku lahaa sida uu cadeeyay mar uu telefishin laga leeyahay gudaha wadanka Kenya oo u sheegay Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed. Sidoo kale Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed ayaa la sheegay in uu si weyn u taageersanaa nidaamkii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo kooxdiisa ay wadanka ku maamulayeen 5 sano ee la soo dhaafay. Professorka oo si weyn looga yaqaano Geeska Afrika iyo wadamo badan oo dhaca koonfurta iyo bartamaha qaaradda Afrika ayaa waxaa la sheegay in uu ahaa falanqeeye iyo sidoo kale in barayaal ama bara uu ka ahaa jaamacada ku yaala gudaha wadanka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi. Ha yeeshee koox qowleysata ah ayaa professorka si adag indhaha inta uga xireen waxa ay ku riteen gaari ay wateen inkastoo la raadinayo muddo 3 maalin ah kadib. Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed laga helay gudaha wadanka Kenya. Ha yeeshee waxa uu sheegay in falkaasi lagula kacay uu ka dambeeyay Ra'iisul Wasaare Rooble iyo tiim uu sheegay in ay la shaqeynayeen. Sidoo kale waxa uu sheegay in la damacsanaa in isagu dhan la qaarijiyo. Ha yeeshee waxa uu sheegay in Ilaahay uusan u qadarin waxa ay damacsanaayeen sida uu hadalka u dhigay. Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed waxa uu sheegay in wadanka Norway uu dhalasho uu ka haysto. Ra'iisul Wasaare Rooble oo hadda xilka ka tegaya ayaa sheegay in uu u gudbiyay rajeynayo in dhawaane uu la tiigsan doono maxkamada ku yaala gudaha wadanka Norway. Waxa uu sheegay in aysan marmarsiyo aysan u noqon doonin xilka ugu sareeya dalka ma xilka uu Ra'iisul Wasaaruhu uu hay'adda uu ku takrifalay sida Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed uu sheegay dhowr mar oo jinada ku hadla afka Soomaaliga uu sheegay in dhaqdhaqaaqiisa iyo sidoo kale waxa lagula dhaqmay uu Ra'iisul Wasaare Rooble uu raalli ka ahaa. Eedeymaha kala duwan ee Rooble uu soo jeediyay Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed ayaa ilaa hadda la ogeyn sababta rasmiga ah ka dambaysa iyo sidoo kale in Ra'iisul Wasaare Rooble uu ku lug leeyahay in Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed laga afduubto gudaha wadanka Kenya. Weli waxaad daawanaysaan janaalka xulka wararka. Qodobo kale oo muhiim ah ayaa inoo soo socda. Hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ayaa waxa ay ilaaladii xildhibaan Cabdullaahi Kulane Aadan oo loo yaqaan Kulanajiis waxa ay kala noqotay in uu si degdeg ah ku wareejiyo. Sidoo kale 2 nin oo la sheegay in ay ilaalo u ahayd isla markaana doonayaan ayaa shalay galinkii dambe lagu qabtay gudaha garoonka diyaaradaha Aadan Cadde International Airport ee magaalada Muqdisho. Ha yeeshee waxa la sheegay
in labadaas nin ee ilaalada u ahaa Kulane Cabdullaahi Kulane ay doonayeen inay gudaha dalka ka safraan. Ha yeeshee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa waxay gebi ahaanba amartay xildhibaan Cabdullaahi Kulane ayay ku amartay hay'addu in ilaaladiisa guud ahaan iyo baabuurta hay'adda ay leedahay uu si degdeg ah ugu wareejiyo hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka. Mahad Maxamed Salaad oo ah agaasimaha guud ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa waxaa la sheegay in amarkan uu bixiyay inta uusan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud safarkii shalay galinkii dambe ay ugu ambabaxeen gudaha dalka islamarkaana ay ku wajahnayeen dalka Imaaraadka Carabta ay amarkaa uu bixiyay Mahad Salaad. Kiisas badan oo dilal ah iyo sidoo kale falal la sheegay inay ka baxsan yihiin xuquuqda aadanaha ayaa waxaa inta uu madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu talada dalka hayay la sheegay in hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ay ku kacday. Hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa waxaa agaasimaheeda guud ahaa Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo mar lagu tilmaami jiray in uu yahay milkiilaha dowladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Cabdullaahi Kulane Aadan oo ahaa sargaal nabad sugid ah islamarkaana madaxii shaqada shaqaalaha hay'addaas ahaa ayaa la sheegay in uu tacadiye kala duwan uu ka geystay hay'adda, inkastoo aanan si dhab ah aan loo ogeyn tacadiyada uu geystay. agaasimaha cusub ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa hadda ku howlan baaritaano kiisas badan oo hore loo laabay. Madaxdii hore ee hay'adda ayaana waxa ay hore iskaga diideen eedeymo kala duwan oo hore loogu jeediyay. Xildhibaan Kulane ayaana hadda la sheegay in ay soo wajahday si kala duwan oo ku aadan in kiisas badan uu ku soo baxo. Hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ayaana ah hay'ad sal ballaaran islamarkaana ka shaqeysa xogaha iyo sidoo kale in ay la dagaalanto cadow kasta oo Soomaaliyeed sida shuruucda hay'adda ay qayb ka tahay. Safarka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxaa la sheegayaa in la doonayo in wadamadii sida weyn u taageersanaa dowladdii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in lagu colaadinayo, iyada oo sidoo kale warar kala duwan oo madax bannaan oo soo baxayana la sheegayo in dowladda Xasan Sheekhna ay ku howlan tahay xiriiro cusub lala sameeyo guud ahaan wadamadii dowladdii madaxweyne Farmaajo xumeeyay. Xasan Sheekh Maxamuud oo 15kii bishii ina dhaaftay ee May loo doortay hoggaanka cusub ee dalka Soomaaliya ayaa waxa uu ku jiro hogaamiyayaal tiro badan oo si weyn u mucaaradsanaa dowladdii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo islamarkaana horey u tibaaxi jiray in dowladda Farmaajo isku koobto oo kaliya hal dowladood, iyada oo uu sheegay in saaxiibka dhow ee dowladda Farmaajo ay ka dhigatay in noqotay dowladda Qatar. Xasan Sheekh Maxamuud oo shalay ka dhoofay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ayaa waxa uu booqasho rasmi ah uga bilaabatay magaalada Abu Dhabi ee isutaga Imaaraadka Carabta. Dowladda isutaga Imaaraadka Carabta ayaa sanadkii 2018 9.6 milyan oo dollar waxaa looga qabtay gudaha garoonka diyaaradaha Aadan Cadde. Lacagtaas ayaa la sheegay in ay ku socotay safarada ay Imaaraadka ku leeyihiin gudaha magaalada Muqdisho. Wixii intaa ka dambeeyay ayaa waxa si aad ah u xumaaday xiriirka dowladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidoo kale dowladda isutaga Imaaraadka Carabta. Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa la sheegay in galaangal weyn ay ku leedahay gudaha wadanka Soomaaliya, inkastoo dowladda Qatar iyaduna la sheegay in lacag malaayiin ay ku bixi jirtay dowladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyada oo aanan la ogeyn sababta rasmiga iyo waxa kalifi karay. Ayeeshee la sheegay in ay dana waaweyn ay ka lahayd dowladda Qatar ayaa mar waxaa wadamada la isku yiraahdo Khaliijka ay go'doomin ku sameeyeen dowladda Soomaaliya ka qaadatay go'aan dhexdhexaadnimo. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hadda waxa uu wanaajinayaa xiriirkii xumaaday ee dalalka Imaaraadka iyo Soomaaliya, isagoo saaxiib dhowna la sheegayo in uu ka dhiganayo xukuumadda Abu Dhabi lacago malaayiin ah, iyaduna qorsheynayso in ay ku bixiso sida dowladda Soomaaliya looga taageeri lahaa dhinacyo kala duwan oo ay ugu horeyso amniga Soomaaliya. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu horey markii uu ololaha ku jiray halkudhig uga dhigtay Soomaali heshiis iyo dunida heshiisa, inkastoo warar kala duwan oo soo baxaya la sheegayo in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu wanaajinayo dowladihii oo horey dowladdii Farmaajo xumayso oo idil. Guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa qodobadii hordhaca aan idinkugu sheegay oo aad ka daawanayseen janaalka Xulka Wararka. Inta aan qodobadan iyo kuwa kale aan ku kulmi doono, sidaas iyo nabadgelyo.